waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan maanta maamulka gobolka Banaadir iyo haweenkaba u diyaar garoobayaan iyo shacabweynaha Soomaaliyeedba iyo caasimadaba shirka haweenka Soomaaliyeed oo heer qaran ah oo ka dhici doona magaalada Muqdisho maalinta berina furmi doona 4 ilaa 6 muddo 3 casho ah waa shir runtii muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed oo haweenku ay qurbaha iyo dalka gudihiisa isaga imaan doonaan oo dawladda federaalku ay hormuud ka tahay wasiiradda haweenka iyo xuquuqul insaankana deeqo ay runtii soo abaabushay maamulka gobolka Banaadir waxaan halkan u fadhinaa waxay tahay inaan caddeyno mowqifka gobolka Banaadir inaan soo dhaweynayno muhiim yahay shirkaasna aan ka codsanayno shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan laga qayb qaato waxaan rajaynaynaa inuu shirkaas noqon doono mid miro dhala isla markaana haweenka Soomaaliyeed oo la isu keeno waxay tahay bulshadii oo dhan oo la isu keenay haweenka oo isu yimaada ayagooda ka tashatana waxay tahay in Soomaaliya ay horumar gaartay waxaan rabnaa qof kastoo Soomaaliyeed inuu kaalintiisa ka qaato gaar ahaan shacabka caasimadda anoo hubo inay kaalintooda ka qaadan doonaan in 3 cisho ay soo dhaweyn doonaan dadka martida u ah isla markaana aan rajaynayno go'aanada dhaxalgalka ay ka soo bixi doona inay noqdaan kuwa lagu xoojinayo nidaamka dawladnimo nabadeynta horumarka iyo isdhexgalka bulshada haweenku waa laf dhabarka caasimadda iyo gobolka Banaadir waxaa lagu yaqaanay inay weligoodba hormuud ka ahaayeen arrimaha haweenka doorkooduna muhiim yahay marka waa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa una dhiirigelinaynaa waxaanan leenahay shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan si wanaagsan looga qayb qaato aad iyo aad u mahadsantiin